raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeyey laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waa wax iska dhib yar. naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyadu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi. rasuulku xadiis waxa uu ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin la yidhaa baabu salaa, dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaa, dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaa, dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabu ljihaad la yidhaa. abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah, hooyaday aabayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhay ma jiraa buu yidhi. markaasuu nebigu yidhi nacam wa arju an takuna minhum, haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhay la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abubakarow. abubakar keliya ka gali maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallat khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha wa xafidat farjaha. hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan ay soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaanta oo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oo adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanay la geli doontaa qiyaamaha. waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi. caaisha weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi. waxay tihi maxaan kaga fadli badanay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye. wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna. waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan, salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan. fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbaha buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor. sayidina cabdullaahi bin cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan. cabdullaahi bin cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin. wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi. xaqiina waad leedihiin, xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday. dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay, islaam baad tahay, muuminad baad tahay. waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday wadadoodii maryam binta cimraan ku dayo, aasiya bintu masaaxim ku dayo, faadima binta muxamed ku dayo, khadiija bintu khuwaylad ku dayo. dadkaasa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay. sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay 4 buu ka doortay buu nebigu yidhi. 4taasina waa maxay? waa maryam, waa nebi ciise hooyadii, waa aasiya weeyaan. waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd, halka baydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya. faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay, adduunyadana way ka saay qaadatay. waa khadiijo oo qofka ugu horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija. qofka ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixina khadiija ahayd. diinta islaamku meel sarayna dhigtay. raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan, amiirana ma noqdaan, maxay ku dhacday? nebiyana ma noqdaan, maxay ku dhacdaa la yidhi. waxay tihi gabadh xikmad lahaydoo 4taaba annaka unbaa dhallabay tihi. subxaan allah, caqligu waa cajiib. caqliga allah inoo hagaajiyo. boqoradana annaka unbaa dhalla, imaamyadana annaka unbaa